sababta nu sameeyay channelkan ayaa in wax kastoo naftiina ku saabsan iyo wax kastoo noloshiina ku saabsan iyo xaalad kastoo noloshiina ku saabsan aad haataan kuwa ugu saxsan ugu quruxda badan ee markasta wax kastoo noloshooda xidhaan haday dhar noqoto haday noqoto personality-gooda haday noqoto mindset-ka ama sida maskaxdaadu ay u fikirtay u taalo ay noqoto sida ugu wanaagsan ee ugu fiican mawduuca maanta wuxuu ka hadli doonaa sandaliska ama kabaha ay had iyo jeer Soomaalidu ku badan xidhaan marka la barbar loo dadiyo gacan hadii uu mawduucan u muuqdo mid xiiso leh inoo bilaabo oo inuu mid xiiso leeyahay I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Salamu AlaYkum guys, Ramadan Mubarak. And sandalisku waxyaabaha ugu muhiimsan ee had iyo jeer nolosheena aan xorno hadii noqoto markaan u baahanayn nafis ama lights iyo kale waxyaabahaas kala xidhano sometimes waxaynu u sii xidhno ugu muhiimsan waxa weeye khamiiska in marka afar qodob oo easy oo aad iyo aad u jilicsan oo aad xaafidina jooga samayn karto ayuunbu mari doona laba qodobna waxa ku saabsan sandaliska xidhanayso laba qodobna waxa ku saabsan cagtaad ku xidhayso qodobka ugu horeeya oo ah inaad nadiifiso sandalkaaga ha charge gareynina sandalkayga lagu mashquulin laakiin kaliya muhiimada waxa weeye in tuso marka inaad sandalkaaga nadiifiso waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad oo ah inaad cidiyaha lagu gurto hadii jeer aad cidiyaha gurigeedo lagu fool xumaanayaan ama waxay kaanayaan si kala fool xun marka inaad gurto aad iyo aad muhiim ah qodobka saddexaad oo ah in aad samayso moisturizer ma waxaan ka wadaa المعنى راشي وكذا سي مركاد لابد قلوبه هرد صار كتير وكذا مركاد لابد قلوب صوص ميسو كدي واحد كويه قلوب استحاضة يستمعشوا مستراسر كسي لوقت هذا أيوة بعض وكذا عوان كي وحيابي عدان كي وحيابي بس كي كلام هذا صوم يرتو كذا صابوني وحيابي صوم كمان ويسوق الحين أولا لا يسنقط مستراسر كمان كأدي شيء أدي أن أروح نكسن شيء كانوا يستمع أنا كذا كانوا يكسن أنا كمان شغال مركاد كاسو كذا نكسن نسمعه qodobka afraad ee ugu dambeeya oo ah ka ugu muhiimsan markay noqonayso jeer sandalka waxyaabahaas kale oo ay tahay inaad soo qaadato ama aad soo iibsato ama aad soo doorato sandalka saxda ee ku soo baxaya cagtaada waxaan ka wadaa cagtaada iminka hadii jeer adiga iyo saaxiibka isku caamitihiin laga yaabo adiga iyo walaalka inay isku cagahayn oo dadku kala cagduwan yihiin dad qaar bay awoodu farada dheer oo kale leh qaar ba farqa gaaban leh qaar ba suuq u dheer yahay qaar ba dhex dheertay wada aragtay waxa soo qado marka ay jiro wanaagsan inaad soo qaadato kaba kugu soo baxaya oo wanaagsan imiko kale aniga oo kale marka noqoto anu farada dheer milihi oo farada dheer milihi si waxaan iska gaaban iska farqa gaaban marka inay kugu soo baxaysa qaadato ay noqonaysaa imiko kale hadii aan soo agteedo kale ta aniga faraygu oo kuwa faraygu qaar dhaadheer maaha laakiin si yar oo saas ku siman weeyaan marka kabaha qaatay ee igu soo baxayaan waxa weeyaan kabiga tusayo kale oo si fiican bay igu soo baxaan sidoo kale kabaha igu soo baxay waxa weeyaan kuwan indhasha lahayn ee asaas loo gashado hadii jeer kabaas guriga soo joogo kale kuwa loo gashado kuwa si fiican bay igu soo baxaan sababtoo ah faraygu ma dhaadheera oo xagga hore kama soo dhacayaan dadka qaar ba khalad sameeyo waxa kamid ah inay xidhaan kabiga khaladka iyagoo fara dhaadheer la ay kabeero soo bilaa indhan qabataan la xidhayaan marka xidhaan kadib farihi ayaa wax sameynayaan way ka soo dhacayaan dhinacaas ka soo dhacayaan taasoo keenaysa fool xumoodo way kaan soo kale oo dhici karta in lagu qoslo waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido videoga insha Allah video dambe soo saari doonaa Ramadan Mubarak insha Allah ta'ala khair baan rajeynayaa Ramadan bashir baan rajeynayaa waa aniga oo Maxameda waxaan idin tagayaa sida iyo nabadgeliyo subscribe-na ilaa insha Allah